Jubbaland maamulkeeda iyo systemkeedu gadaw ka jiray ولنا وكجرا عدة ضعف فروق وضع عدة دلاسة وضع وعدة كسر دوشة Jubbaland عيدا مصدرتي ديارات مصدرتي دبابات مصدرتي عيدا الصومالية هالك عدو لها سكدرتي دون سنة كل يسوع دون سنة بركة يسوع دون سنة أمن إنه جري Jubbaland فيك سنة خطر جلسوا ووضع اليوم أما جرا كسر قلاسة كابورتو أما راسكنبونا كابورتو أما ملك هلو Jubbaland كم دي صوماليا كابورتو وقرشة ودول أنا وروح أنا قنصنا وحاك الصعلمات إذا استودر بوريستا قدي شرع الرئيس حوالين سمعتها كنت أعرف فلك أودد إذا استودر أنا على قنصين فرتاجيو دولة فضلات كأو ودقائق كسر قدم Jubbaland دقائق من كيات كاني فقد هذا كأنه قفك هالله صودا وهالله كم أفكار ما كمان كرت أسكال الله واتا وكا وشأنا ما حدين هذا هذا سود صوته هاوس إنه هذا وين أفتك كان هذا ما داعي كان هذا كذا سكمبون وخد داعي والو خلا بحي والو خلا كذا واحدة ما بدنا ما نوع ما بلا إلا هذا Jubbaland بوركاس عدينا يا عدين الله بعد لو عيدين فضلات كان مش جويله لقى قبته واحد أسكعت ما واحد ما بوا duulaan inaysan ahayn bi aaminsanay dawladda dhexe ee federaalka oo halkaas ciidamadii amsoomay ka baxayay inay buuxinayeen booskooda ma joogin ciidan amsoom raaskamboon ciidan amsoom ma joogo ciidan amsoom meesha jooga hatta gaan hala tago waa sax laakiin meel ciidan amsoom joogin bay ciidanka dawladda ku duushay waa gartay marka meel hawshaas hadda gacan ka hadal ma dhacay hadal uu dhaafay imka Jubbaland iyo hadda federaalku hadal saxaafada soo marin maayaan sababtoo anaga hadal gabayna marka waa ka xidhan way hadallo u joogtana waxaan ugu tahay gaftaal binoo tahay waa tahay dabcan dawladda dhexe ee federaalka ilaa hadda wali waxay tiraahdaa inaysan aqoonsaneerba waxa Jubbaland ka socda ana waxaan aqoonsanay waxa ka socda maanta إذا استودر بوريستا قدي شرع الرئيس حوالين سمعتها كنت أعرف فلك أودد إذا استودر أنا على قنصين markii hore dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya imaanay Jubbaland ma iyada ayaa dawladda dhexe ma Jubbaland hoostageysay dawladda federaalka waa dastuur lagu mideysay ku meel gaar ah oo ummadda Soomaaliyeed ku mideysan tahay cidii booliska ma qaadan karta sharciyad lagu mideysay yahay oo lagu hoostay karo waxa lagu dawladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ku mideysan yihiin dastuurka ku meel gaarka ah in la ilaaliyo ahdigiisa sistamkiisa dawladda Jubbaland waxay ka mid tahay dawladaha ka mid ka ah dawladda federaalka dastuurkii iyo sharcigii xasan sheekh maxamuud lagu doortay ee madaxweynaha lagu doortay ee dawladda lagu dhisay hadii ay dawladdu jabisay oo dastuurka ku dhaqmaynin marka aqoonsigeeda iyo aqoonsanaanteeda marka taas wax la isweydiinaya ma waayahay marka Axmed Madoobe waxa lagu eedeeyaa in doorasho sharci darro ah ee uu ku soo laalaabto mar kasta uu yimaadaba taa maxay kula muuqataa Axmed Madoobe waxa lagu eedeeyaa xasan xusameynaya waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya dastuur la kala faquuqay waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya gudi doorasho oo sharci waafaqsanayn waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya baalmaritaanka sharci isaga wixii lagu kula jiray sayidka lagu odeyn karaa waa gartay xasan sheekh maxamuud xusameynayo ee uu dastuurka qaranka ee ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed ee ku mideysnaayeen ee ku meel gaarka ah qof waxayna qofka ka hadli karo horta dastuurka la soco waxaan ku soo noqon wadiiqadii lagu doortay iyo wadiiqadii dastuurka oo ah kadib qof baa khaldamay iyo qof baa waxa sameeya ka hadlo waa gartay waxaan ku weydiinayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maxaad u aragtaan hadda Jubbaland hadii aad tihiin soo madaxweynaha dalka asiga inuu yahay soo uma aragtaan waxaan aqoonsan madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha dalka inuu yahay ku jooga doorashada ku jooga sharci xilligeedii aan dhamaanin laakiin sidoo dastuurku qabo lagu mideysan yahay xilliga lagu sala galay hadda isdeed looga dhiman tahay maalku haddii sida doorasho ku qaban waayo kala wareegay cid kasta way cadeeyeen madaxweynaha Soomaaliya uu sanaanin oo loo qoonsiyo soo noqonay maxaa sida u leedahay waxa uu leeyahay sida muuqata Xasan Sheekh Maxamuud inuu doorasho qabto qorshihiisa ma doorasho loo gal yahay qabto qorshihiisa ma to aan la isku raacsanayn to hatta la isku raacsanayn qabto qorshihiisa ma nisbad loo dhiman tahay oo system samaynin oo dastuur samaynin oo gudi la isku waafaqsan samaynin inuu doorasho u socdo ma aaminsanano system doorasho u socdo qorsheedu ma cadda dabcan dad baa aaminsan madaxweyne kasta ama musharax kasta oo tartama ama olole ku jira inuu mar walba oo ballan qaado inuu dastuurka u dhameystirayo sidoo kale doorasho qof codana uu qabanayo haddana Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya arinka inuu ku socdo marka maxaad ku diideysaan dastuurku waa dastuur ummadku ku mideysan tahay ma aha qof mid shakhsi iyo koox gooni ah intay meel ku urursato wax ka bedesho ay wax ku darto dastuurka Soomaaliya waxa dhameystirkiisa wuxuu dan u yahay ummadda Soomaaliyeed oo idil wuxuu dan u yahay horumarka iyo dawladnimada Soomaaliya waxa ummadda iyo dawladda iyo dalka danta waana wuxuu mudan yahay in la isla qaato la isla fahmo wixii toosin la toosiyo wixii khaldan laga saaro inuu qof intuu jeebka gashado yiraahdo sidan baa sameeyay sida ma ka tooray dawladdu iyo system toona oo ma adan iyo dal toona hadalka caday maxaa kala jeedaa koox gaar ah warkeedu waa cad yahay waayahay dabcan gobolka Gadow waxa ka socdo hadda isha ayaad ku haysaa laba maamul dhinaca dawladda dhinaca Jubbaland kiina ayaa ka jira marka sida xal ma u aragtaan Jubbaland maamulka Jubbaland dawladda Jubbaland maamulkeeda iyo systemkeedu Gadow ka jiray ولنا وكجرا عدة ضعف فروق وضع عدة دلاسة وضع وعدة كسر دوشة Jubbaland عيدا مصدرتي ديارات مصدرتي دبابات مصدرتي عيدا الصومالية هالك عدو لها سكدرتي
doonaysa inay kullayso doonaysa inay barakiciso doonaysa amniga iyo nabadgelyada Jubbaland ka inay khalkhal geliso waa wadadii ama degadaa ka soo qalasa ka abuurto ama raaskamboona ka abuurto ama meelo kale oo Jubbaland ka mid ah Soomaaliya ka abuurtay waa qorshaha dawladda federaalka maanta ku socoto in dawlad goboleedyada xubnaha ka mid ah dawladda federaalka inay burburiso dara ka abuurto iyadoo ognahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee awoodda lahaa ee qiimaha lahaa in iyadoo ognahay xaaladaha dagaal ee waddanka ka jira goobo badan oo hore u hayeen oo hore xag ugu dhintay oo saraakiil ugu dhinteen in loo soo bandhigay cadawga Soomaaliyeed waxaan ku weydiinayaa waxaad tiri raasgaboona duulaan baa lagu soo qaaday dawladda dhexe ayaa ku soo qaaday gobolka Gedo sidoo kale dawladda ayaa ciidan ku soo daabulaysa marka ma waxaad u aragtaa ciidan kasta oo dawladda dhakeeda ka socda oo Jubbaland yimaado inuu cadow yahay ciidan Soomaaliyeed cadow noqma ahayn ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan Soomaaliyeed baa jooga ciidanka qaranka Soomaaliyeed anagu waxa ciidanka Jubbaland waa ciidan Soomaaliyeed ciidan shisheeye ma ciidan ajnabi ma ciidanka dawladda federaalka ee ciidanka xoogga dalka meel walba waddanka Soomaaliya ka tagayo waa si sax ah waa ciidankiisa wada dalkiisa waxa khaldan ideolojiyada loo isticmaalayo awaamirta lagu siinayo in ciidanka xoogga dalka loo adeegsado caburin iyo burburin maamul iyo dawlad iyo system nabad ah oo dhibaato ka jira marka maxaad u leedahay dawladda dhexe iyada ayaa duulaan ku ah gobolka Gedo ciidanka iyo maamulka lagu soo daabulay gobolka Gedo waxa uga dhow oo u baahan lagu daabulo aadayabal oo cadow gacanta ugu jiro waxa uga dhow sirib iyo xaalad in loola dagaalamo cid aan uga dhaweyn ma Gedo 12 sano ka hor baa ashaab lagu xoriyay maxaa ciidanka lagala soo doonaya marka laga soo tago Gedo ma waxaad aaminsan tahay Jubbaland qayb ka mid ah inaysan joogeen wax al-shabaab ah gobolada ma haysan degmooyin ma haysan shabaab waa cadowga koobaad waa la dirna shalay u dambeysay oo shalay ahayd dagaal ma ku saabsan saddex maalmood soo ciidanka Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed danab ay saddex maalmood dagaal kula jireen kooxda al-shabaab oo ka dhacay dawladka Dowlahaji dagaalku uu socdaa cadow uu jooga macnaheedu ma aha dhulka Jubbaland dhulka Soomaaliyeed uu cadow jooga macnaheedu ciidanka la diiday ciidanka ka hadlaynana ma aha ciidan la dirirahay cadow ciidanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu jooga Jubbaland meel badan uu ka jooga iyaga ciidanka Jubbaland way wada dagaalka barbar u galaan way isgarabsadaan way soo heshadaan dhaawacay wada qaataan raashinkay wada cunaan waxaan ka hadnaa waa ciidan la soo abaabulayo la soo manaanadayo la qorsheynayo la doonayo in dalka lagu burburiyo la doonayo in umad lagu barakiciyo la doonayo dhul ammaan ah oo maamul system ka jira in lagu khalkhal lagu geliyo waayahay dabcan waxaad aad u aftiimisay shabiib yacaan oo la aadayo baaliyo meelo kale oo dhinaca Shabeellaha hoose iyo Shabeellaha dhexe ah marka maxaad u soo hadal qaaday arrinka iyadoo oo aan ognahay in qayb ka tirsan Jubbaland ay joogaan xubnaha shabaabka dawladda meel kasta oo gobolada dhexe dalka ka mid ah ciidan ay ku daabusho 2024 dawladda Soomaaliya waxaan ka dalbanay ciidan dawlad xoogga dalka Soomaaliya inay ugu caawiso ciidan kun askari ah la soo diray xeer la dajiyay annaga kharashaadkii la baxnay xeer la dajiyay weerarkii koowaad ee meesha lagu qaaday ciidankii dawladda Soomaaliya ee noo soo dirtay Muqdisho ka soo dirtay doomay baxeen hatta inaan noorino weydiiday way carreen marka ciidanka dawladda Soomaaliya ciidan noo soo dirayso Jubbaland ka bari ka barbar dagaalama ka bari ka taale cadowga la safaa ciidanka Jubbaland oo cadowga halka cadowga la dagaalamayaan waxaan u baahanahay waxaan doonayn waxaan aaminsanahay cadowga Soomaalida hal xabaya dawladda Soomaaliya ciidanka ay Gedo ku soo daabulayso ee Jubbaland ku soo daabulayso ma ahan ciidan dawladeed iyo ciidan xoogga dalka wixii loogu talagalay qabanaya waxa weeyaan ciidan la doonayo in amniga iyo khalkhalka Jubbaland lagu burburiyo Raaskambooni 13 sano ka hor baa ya al-shabaab laga xoriyay waa meesha ugu horeysay ay ka mid ah deegaanada hore laga xoriyay in 2024 aakhirkiisii lagu soo daabulay ciidanka qaranka oo diyaarada lagu keeno oo ciidankii Jubbaland ee meesha joogay la afduubto ma hal ciidan hal dawladeedna ma waayahay waxaan ku su'aalayaa dabcan dawladda dhexe ee federaalka iyo Jubbaland haatan khilaafkooda waa uu sii dheeraaday marka hal miyay idinku muuqdaa sida Jubbaland waxay diyaar u tahay mar walba in gobosho iyo miiska halka uu furan yahay Jubbaland waxay dan u tahay oo waxay aaminsan tahay oo dan u ah in ummadda Soomaaliyeed la isu keeno Jubbaland waxay diyaar u tahay wadiiqo kasta